wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa guddiga tacliinta sare ee jamhuuriyadda Soomaaliland ku wareejisay buugga barashada cashuuraha kala duwan ee dalka waxaana loogu talagalay in manhajka waxbarashada jaamacadaha dalka lagu daro barashada cashuuraha si da'yarta jaamacadaha ka soo baxaysa ay u noqdaan kuwa aqoon buuxa u leh cashuuraha kala duwan ee dalka munaasabada buugga loogu wareejinayay guddiga tacliinta sare ee Soomaaliland oo ka dhacday xafiiska wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiyaha guddiga tacliinta sare agaasimaha guud ee guddiga tacliinta sare iyo agaasimaha manaahijta ee tacliinta sare dhanka wasaaradda maaliyadda waxaa goobjoog ka ahaa wasiirka wasaaradda maaliyadda agaasimaha guud ee wasaaradda maaliyadda iyo agaasimo waaxeedyada dhaqaalaha iyo agaasimaha xiriirka dadweynaha buuggan oo ay soo diyaarisay waaxda dhaqaalaha ee wasaaradda horumarinta maaliyadda waxa ugu horeyn hadal ka jeediyay wasiirka wasaaradda horumarinta maaliyadda Dr. Saad Cali Shire oo ka warramay muhiimadda uu buuggan u leeyahay in lagu daro manhajka waxbarashada dalka waxaana ka mid ah hadalkiisii waxa wasaaradda horumarinta maaliyaddu si rasmi ah ugu wareejinaysa guddiga tacliinta sare buug si fiican loogu sharaxay oo xambaarsan habraaca iyo nidaamka cashuuraha Soomaaliland waxa jirta jaamacadaheena badidoodu inay dhigaan maadada xisaabaadka amba accounting loo yiraahdo af Ingiriisiga laakiin jaamacad walba ay ka soo ergeysatay jaamacad kale oo ajnabi ah oo markaa aanay wada soconin markaa si ka looga baxo ardaydana loo baro shuruucdii cashuuraadka Soomaaliland ayaa buuggan loo sameeyay waxaan rajaynaynaa buuggan uu ka caawin doono dhalinyarada markay jaamacadda dhameeyaan isla markiiba inay ka hawlgeli karaan ka shaqayn karaan amuraha la xiriira cashuurta Soomaaliland si uu buugga xambaarsan shuruucdeena iyo nidaamkeena dastuuriga amba sharciga ee noo dhigan gudoomiyaha guddiga tacliinta sare ee Soomaaliland Saleebaan Dirir Cabdi ayaa isaguna halkaasi ka hadlay waxaanu yiri farxad bay noo tahay inaanu maanta wasiirkii maaliyadda horumarinta maaliyadda iyo tiimkiisii aanu la kulanno kalena wareegno buugga loo diyaarshay habka cashuuraha iyo maamulka guud aad bay farxad noogu tahay waxaanu fariin u diraynaa oo runtii hawada uga marinaynaa horena aanu ula socodsiinay dibna ula socodsiinay jaamacadaha kulliyadaha iyo instituudyada dhiga wax allaaliya wixii cashuur ku shaqo leh in manhajkii buuggii laga raaci lahaa oo la soo diyaarshay in maanta aanu kala wareegnay wasaaradda maaliyadda waa hab awal waa lagu daali jiray waxa weeye wixii oo laakiin la soo bisleeyey ayaa la doonayaa lecturerska iyo professoradu inay raacaan maanta innakii baa qorannay innakii baa diyaarinay jaamacado iyo kulliyado maanta wax laydinka doonaya barnaamijka inaad si rasmi ah aad u fulisaan